بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ولا ليرسي رضي رسولك إن سودني صلى الله عليه وسلم waxaynu joogtay dagaalkii axzaab ama ghaswatul khandaq loo yaqaan oo ay nimankii carabeed ee qurayshtii gaalada ahayd iyo nimankii kale carabeed ee reer bani qatafaaniya qabaa'ilo kale oo fara badan oo reer carabeed ay nabiga ilaahi sallallahu alayhi wasallam ay duulaan ku soo qaadeen si ay u qabsadaan magaalada Madiina oo loo soo afjaro dhaqdhaqaaqii islaamiga ahaa ee ka jiray magaalada Madiina. shirqoolkan iyo dagaalkana waxaa ka dambeeyay saan soo sheegnay 20 nin oo yahuudi reer bani nadiir ka mid ah oo uu hogaaminayay ninkii loo jiray Xuyay ibn Akhtab oo yahuudi reer bani nadiir ka mid ahaa oo u tagay qabaylkii carabeed ee Quraysheed oo isku soo booriyay inay Muhammad ku soo qaadaan dagaal. sidoo kale kumay hakanin intaas oo kaliya waxa uu tagay reer bani Qatafaan oo qabaa'ilo badan ay ka kooban oo dabadeedna waxa iyagana ku booriyeen in dagaal ku qaadaan Muhammad iyo saxaabadiisa magaalada Madiina. carabtii kalena waa soo mareen. carabtii Quraysheed iyo reer bani Qatafaan waxay ciidankoodu gaadheen 10,000 oo nin. dabadeedna waxaan soo sheegnay inay saxaabadii rasuulku sallallahu alayhi wasallam ay qodeen khandaq weyn, god weyn ayna qodeen oo magaalada Madiina 3 meelood ayaan cidi ka soo gali karin oo laba dhan waxa weeye buuray ahaayeen, dhanna waxa ahaadeen basaatiin oo waxay ahayd meel beero iyo kayn ah oo jiq ah waana ciidamadii soo dhexgali kareen. dhanka waqooyi oo kaliya ayaa magaalada laga soo gali karay. dhankii waqooyina waxa la dhigay godkaas weyn baa laga qoday, mana igna ku dhawaanin nimankii gaaleed markay yimaadeen inay soo dhaafaan. qolyo way isku dayeen inay soo dhaafaan sidaan soo sheegnay, laakiin wixii ka dhacay baa ka dhacay oo batalkii weynaa geesigii muslimiinta Ali ibn Abi Talib waa kii halkaa ku dilay ninkii waxshiga ahaa ee bahalka ahaa ee jasiiradda carabeed oo dhan laga cabsan jiray ee la odhan jiray Camru ibn Wud. markuu Camru ibn Wud dilay cid dambe iskumay dayin inay kasoo gudubto godkaas. waxaan kaloo soo tilmaamnay in mucjizooyin fara badani ay dhaceen xilligaas oo mucjizooyinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam cuntadii tarantay iyo timirtii faraha badneed ee tarantay ee saxaabadii rasuulka oo dhan wada deeqay. sidoo kale mucjizooyinkii waaweynaa ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee godka haddii dhagax uu ka soo horbaxa mu'miniintu ay u taag waayaan oo jabiyaan ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam loogu yeedhay. dabadeedna intuu micwalka iyo sabarada qaato ayuu ku dhufanayay isagoo leh bismillaah. deetana dhagaxu isagoo ciid noqday ayuu kala dhantaalmay. waxaan kaloo soo tilmaamnay bushaarooyinkii waaweynaa oo uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ugu bushaareynayay muslimiinta iyadoo ay tahay xilligii ugu adkeyd ama taariikhda muslimiinta xilligii ugu adkeyd ee soo marayba. bushaarooyinkaasna waxaa ka mid ahaa inay muslimiintu furan doonaan dhulka Faris, inay furan doonaan dhulka Roomaanka, inay furan doonaan qaaradda Afrika badankeed sida wadanka Masar iyo dhulka Yaman, inay furan doonaan jasiiradda carabeed oo dhan muslimiintu iyo islaamku gaari doono. arrintaasina waxay xaqiiqo noqotay geeridii nabiga sallallahu alayhi wasallam 4-5 sano kadib. muslimiintu nimankii Faris way qabsadeen dhulkoodii oo gurigii weynaaye la odhan jiray guriga cas ee magaalada Baghdad ku yaala dhulka Ciraaq waa la qabsaday. sidoo kalena Roomaankii waa laga qabsaday dhulka Sham oo dhan. Masarna gacanta muslimiinta soo gashay, Yamanna sidoo kale gacanta muslimiinta soo gashay. waana sidoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo markuu dhowr sano ka hor ugu sii bushaareeyay muslimiinta sallallahu alayhi wasallam inay furan doonaan. arrintaasina waxaynu soo sheegnay in ay nimankii munaafiqiinta ahaa ee ku dhex jiray muslimiinta ay yaabanaayeen oo ay lahaayeen sidee bay u suurtoobaysaa nin annaga naga mid iskuma aaminayay bay lahaayeen inuu suuliga tago oo uu kaadi tago ama uu saxaro tago wuxuuna Muhammad noogu ballan qaadaya kanziyada Kisra iyo Qaysar. nimankii munaafiqiintu waxay akhrinayeen
arrintu halkaa markay maraysay aadka u qadhaadhahay oo 10,000 oo ciidan oo qalabaysan ay hortaagan tahay halka ay hortaagan yihiin oo muslimiintuna safka ay ku jirto oo ay mar walba ciddii isku dayda inay godka ka soo baxdo ay waran ama fallaadh ama leebka iyo qaansada lagu tuurayo oo halka ay difaaca kaga jiraan ayaa waxaa dhacday arrin kaloo la yaab leh. magaalada Madiina 3 qolo oo yahuud oo waaweyn baa deganaa. waa qabaa'ilkii reer la odhan jiray reer Bani Nadiir iyo reer Bani Qaniqaac iyo reer Bani Qurayda. reer Bani Qaniqaac iyaga waa laga saaray magaalada Madiina kadib markii ay qadar iyo ballan burin ay ku sameeyeen heshiiskii nabiga la galeen. sidoo kalena reer Bani Nadiir iyagana ballan burin ayay ku sameeyeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxay isku dayeen in nabiga khaarijiyaan oo ay dilaan. iyagana waxa lagu xukumay inay ka baxaan magaalada Madiina. waxaa ku soo harsanaa qabaa'ilkan reer Bani Qurayda oo iyaguna deganaa magaalada Madiina. iyaguna kamay duwaneen yahuudii kale waabay ka darnaayeen iyaguna xaaladii ugu darneed muslimiinta ayay ballan buriyeen oo ahdigii iyo ballantii ay la galeen Muhammad rasuulullah ayay ka baxeen. waxaana ugu wacnaa ninkii aan soo sheegnay Huyay ibn Akhtab oo kamid ahaa yahuudi laga saaray magaalada Madiina oo laga roonaaday ayaa carab badan ay hayso. wuxuu kamid ahaa raggii soo ururiyay carabtan iyo Quraysh oo dhan isugu keenay. wuxuu u tagay markaa qabaa'ilkii kale ku harsanaa ee yahuudada ku harsanaa magaalada Madiina ee reer Bani Qurayda. markuu u tagay ayuu wuxuu u tagay ninkii madaxda u ahaa reer Bani Qurayda loo odhan jiray Kacab ibn Asad loo odhan jiray. markaa wuxuu ku yidhi Kacab u dhagayso waxaan kuu keenay buu yidhi carab intay ka tira la ekeed Quraysh oo hubaysan ba halkan taagan buu ku yidhi. sidoo kale reer Bani Qadafaan iyo qabaa'iladoodii iyo jilbahoodii oo dhan oo iswata ayaan halkan kuu keenay buu yidhi. carab 10,000 oo nin ah ayaa halkan taagan oo dagaalamayso Muhammad la dagaalamaysa. dagaalka halkan nagala soo qayb gal buu yidhi oo ballantii iyo ahdigan aad la kula jirtid Muhammad buri. Kacab ibn Asad wuxuu yidhi ninkii madaxda u ahaa qabaa'ilkii yahuudada reer Bani Qurayda wuxuu yidhi anigu ballan baan la galay Muhammad mana doonayay inaan buriyo ballantaas. wuxuu dhahay ninkii Huyay ibn Akhtab ahaa waar dhagaysa Kacabow Muhammad annaga ayaa kula dagaalamayna buu yidhi oo macaaga noqonayna. Muhammadna maanta waa la soo gabagabaynaya ee dagaalka halkan kala gal. ninkii Kacab ahaa waa ku qancay warkii uu sheegayay Huyay ibn Akhtab waana ballan buriyay. ballantii markii uu buriyay uu ahdigii ka baxay ayuu wuxuu bilaabay markiiba inuu dagaal iyo camaliyeed iyo howlgal uu ka sameeyo magaalada Madiina. magaalada Madiina waxaan idhi waxa degan reer Bani Qurayda iyo saxaabadii muslimiinta. saxaabada muslimiintu dhammaantood intay ka tiri leeyihiin intii ragga ahayd waxay joogaan maxay halkii khandaq ama godku meeshu ka qodnaa bay joogaan oo 10,000 oo nin bay hortaagan. marka dumarkii iyo carruurtii ayaa ku hadhay cid ku hadhayna ma jirto. yahuudi oo kaliya ayaa halkaa joogtay. yahuudiina markii waxay dooneen inay ka faa'iideystaan sii jeedka ay sii jeedaan muslimiintu oo carruurta iyo muslimiinta iyo haweenka muslimiinta inay u dhacaan sabyi ka dhigtaan oo ay qafaashaan ayay dooneen nimankii Quraysh nimankii reer Bani Qurayda. waxay markiiba soo direen nin jaasuus ah oo basaas ah. ninkaas la yidhi soo basaas. ninkaas uu soo galay meeshii dhufayskii ay ku jireen muslimiintu gaar ahaan haweenkii carruurtii yaryarada muslimiintu meeshii ay joogeen. waxa aragtay markaa ishaas ordaysa iyo basaaska waxa arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam eedadii Safiya bintu Abdul Muttalib oo hooyana u ahayd Zubayr ibn al-Awwam. subhanallah qiyaas marka geesinimadeed. Safiya radiyallahu anha markay aragtay ninka basaaska ah ee jaasuuska ah ee ku dhex jira dhufayska muslimiinta doonayeen oo soo eegay meesha rag joogaan iyo cid kale ayaa waxay u tagtay saxaabigii Hassan ibn Thabit oo isaguna oday weyn ahayo dhowr iyo 60 sano jiray markaas oo aan dagaalkana ka qayb gali jirin. dabadeedna Hassan bay u tagtay waxay ku tiri Hassan ilba meeshan marays basaas weey jaasuus ninkaasi haddeen iminka sii dayno wuxuu ogaanayaa meeshan inaan rag joogin dil bay tiri ku kaco dil. wuxuu yidhi Hassan anigu ma aqaano sida wax loo dilo. subhanallah dabadeedna iyada ayaaba xidhatay dircigii
صفية geesinimadeeda bal u fiirsada nabiga eedadii sallallahu alayhi wasallam Safiya bint Abd al-Muttalib waxay xiratay dirciguna waa aaladan dagaalka hubka la iskaga ilaaliyo warmaha iyo fallaadhaha iyo leebka iyo waxyaalahaas la iskaga dhowro iyo koofiyadii birtahayd iyo wixii bay xiratay dabadeedna ninkii isha ahaayo meel ku gabanaya ayay qabato waxay ku dhufatay ul ay sidatay kiibay dabada u qabatay laankii ka dhintay kii markuu baktiyay ay nimankii yahuudu ay arkeen in meesha rag ay joogaan hadda meesha ragba ma joogaan hadda markaa weerar ku soo qaadi lahaayeen subxaanallah caruurta iyo dumarka iyo haweenka muslimiinta ah way qabsan lahaayeen laakiin geesinimada ay muujisay Safiya bint Abd al-Muttalib ayay ku badbaadeen caruurtii iyo haweenkii muslimiinta warkii markiiba wuxuu gaadhay rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam oo ku mashquulsanaa 10,000 ee ciidan ee carabta ah ee doonaya iyaguna inay u soo dhacaan oo qabsadaan magaalada Madiina warkii markuu gaadhay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu diray marka labadiisi saxaabi saddex saxaabi oo kamid ahaa saxaabadii hogaamiyayaasha u ahaa ansaarta waa Sa'd ibn Ubaada iyo Sa'd ibn Mu'adh iyo Abdullah ibn Rawah ayuu u diray nimankii yahuudeed oo wuxuu ku yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam nimankan yahuudada reer bani Qurayda u taga waxaad weydiisaan in ay ballantii ku jiraan yeen kale haddii ay ballantii ahdigii inagula jiraan codka sare oo qaado ku dhawaaqo waxaad tidhaahdaan codkii ballantii ahdigii way ku jiraan nimankii yahuud haddaanay laakiin ballan buriyaan qaab farsamaysan igu sheega saxaabadii way tagtay Sa'd ibn Mu'adh iyo Sa'd ibn Ubaada waxay u tageen nimankii yahuudda ahaa markaas markay arkeen ba yahuudi labadan saxaabi ay caay bilaabeen in caayaan muslimiinta iyo nabigiina aflagaadeeyaan bal u fiirsada yahuudaas dabadeedna saxaabadii Sa'd ibn Mu'adh iyo Sa'd ibn Ubaada ayaa waxay iyaguna saxaabigii Sa'd ibn Mu'adh baysna wuxuu doonay inuu caayo markaas Sa'd ibn Ubaada ku lahaa nimankan caay wax ka weyn bay noo dhaxaysay inaga kaalay dabadeedna way ka soo noqdeen waxaanu yimaadeen rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam waxayna ku dhahan yaa rasuulallah nimanku waa sidii cudad iyo qaara waayo waa laba qabiil oo iyaguna shirqool u maleegay saxaabadii rasuulka oo ku laayay 10 nin oo kamid ah saxaabadii rasuulka meeshii waqacadii ka dhacday Rajiic halkaas saxaabadii lagu shirqoolay kamid ah labadii qabiil ee ka dambeeyay ayaa cudad iyo qaara loo dhanjay marka waxay ku dhahan yaa rasuulallah waa cudad iyo qaara rasuulku uu fahmay marka inay nimanku ballantii ka baxeen oo ay ballan buriyeen موقفكي وأكاد مركان طبعاً كن أو عيدا بهالكن تاجن صحابة جيبي جدو بصدق كن منافقين كجرتو عرورتي هوانك مسلمين تنا حاجة كلو حاجة وير كجسوا قاضية نمانك يهودا هيدا بلنت بوري بلو فيرس ده نمان كاس مركا هو موقفكي وأكاد رنتي من أوران كرنا تاريخ المسلمين تبصمرة أو أفرت دم بلغ هريري ولذلك الله سبحانه وتعالى وكان كنت المامية وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا مركز المؤمنين تي آد لو ابتلي لو امتحامي بالله ليه سبحانه وتعالى وحنا اللي جلجليس وين أو آد وين بالمؤمنين تي جلجل يعني بالواحد قياستا أفرت الدم بهدي عيدا مدي هريرتاس يا هريرتاس بكاجا جيران مركا رسولك صلى الله عليه وسلم وفكري وحوغا مركو فكري وفكر كيسيو بديي أيو مركري استاجي وقلتها الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره إله بوين كب شاريست المسلمين فرشو يقول حق الله كتم سبحانه وتعالى كدينا وحوه مركي بخضاء يقرشو لغاي نسيدو وجه لها عدو جيسن عدو يدن يعول كان كهري مسيدو وجه لها رسولك صلى الله عليه وسلم مركي بوحو دونينو عيدا مدن طبانك كون يا عيدا مدن كلا يهود ينو كلا ديرو او فرسما او سياسة او اديكسيدو تبدأ رسولك صلى الله عليه وسلم أحد دمعي إن قبائلكي عربيد غير بني غطفان مدحدودي ولورن شري من لورن شري عيينة ابن حصن يا حارث ابن عوف إنه لبدان وهشيس هذا اللقل ولبدان إن
waxay ahaayeen laba qabaylo niman u yimi طبعا odhan karno sida quraysh oo kale u dagaalamayeen maaha niman waxa weey lagu soo booriyay inay magaalada Madiina midhaheeda ay qaataan oo xoolo u dirir ah bay ahaan markaas rasuulku wuxuu ku yiri saddex meelood xoolaha ka soo go'a ama midhaha ka soo go'a magaalada Madiina ayaan idin siinaya nimankii way ku qanceen ayagii markii lagu yiri iska noqda dagaalka quraysh la soo gelinina waxa la idin siinayaa xoolahaas iyo midhahaas ka soo go'a beeraha magaalada Madiina ayaa la idin siinayaa way ku qanacsanay laakiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam maadaama saxaabadiisa muhaajiriinta ahi aanay beeraha lahayn wuxuu doonay inuu weydiiyo saxaabadii kale ansaartu waxay ka qabaan arrinkaas wuxuu u tagay labadii saxaabiye ansaarta hogaamiyeyaasha oo ahaa Sa'd ibn Ubaada iyo Sa'd ibn Mu'aad deedna uu sheegay waxay ku dhahan yaa rasuulallah dhageyso go'aankan aad gaadhay ma go'aan xagga Allah kaaga yimiyo waxyiba ahba mise waxa weeye go'aan aad adigu shakhsiyan aad go'aansatay markaas wuxuu lahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxyi ma aha waa midan anigu oo arkay fikradahan oo waxaan doonayay inaan ku kala kaxeeyo ciidamadan weerarka inagu hay markaas ay dhahan dhageyso hadaba rasuulka Ilaahayow allan ku dhaarne koobsha mid hal xabbo midha ah siin ma nabi ay dhahan waxay dhahan anagu markaanu gaalada ahayn ansaarta aanu ahayn nimanka reer bani Ghatafan magaalada Madiina waligood midha kama qaadan bay yiraahdeen waxay ku qaadan jireen midhaha inay gataan mooyaan wax kale kuma qaadan la seefna waan ka xignaa bilay Allahu akbar rasuulku markii uu arkay mowqifkii saxaabadiisii Sa'd ibn Mu'aad iyo Sa'd ibn Ubaada ayuu wuxuu ku yiri nimankii hunguriga u hayay reer bani Ghatafan ee doonayeen in xoolaha iyo midhaha qaataan ayuu ku yiri warku waa waxad idinka maqlay warkii waana u dhamaatay dabadna Allah subhanahu wa ta'ala markiiba wuxuu qalbigiisa ku soo tuuray islaamnimada nin la oran jiray Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir al-Ashja'i oo reer bani Ghatafan aha kana si aha qabaylka ashja'iyiinta ninka barkiiba soo islaamay wuxuu u yimi rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku yaa rasuulallah waan islaamay buuri qoomkayguna qabaylka Ghatafan iyo ma garanayaan buuri inaan anigu soo islaamay ma garanayo ifar waxa doonaysa markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadii aad khalkhal dhex gelin karaysid qabaylkan iyo nimankan Carbeed iyo Yahuuda samee sababtoo ah al-harb khud'a dagaalku waa maxay dagaalku waa khiyaano wala iskhiyaamay dagaalka siyaasad weey subhanallah laakiin u fiirsada dagaalku marka labada qolo oo dagaalamaysa oo labada qoloba ay dagaalka isku iclaamiyeen marka way ku baldaantay inaad khiyaanaysid inaad siyaasad adeegsatid way ku banaatay laakiin diinta islaamka kuma banaana waxa loo yaqaan qadri ballan burinta hadii aad cid ballan la gashay kama ballan burinaysid ahdigooda ma burinaysid laakiin markuu dagaalku uu jiro aydan heshiis iyo ballan aydan ku jirin oo dagaalna aad isku iclaamiseen marka wad siyaasad wad adeegsan kartaa marka saxaabigan Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu anhu oo markan soo islaamay ayaa wuxuu u tagay qabaa'ilkii Yahuuda ayuu wuxuu doonayay inuu khalkhal dhex geliyo oo labada qabaa'ilkii Yahuuda iyo Carabtii oo madaxa isu geliyo oo eedeetana halka cadhow ay labadoodaasi ku kala tagaan qabaa'ilkii Yahuuda markuu tagay buu ku yiri waa isaguna xilfi wadaag buu Yahuuda lahaa gaar ahaan Yahuudi reer bani Qurayda markaasuu ku yiri dhageysta Yahuuday aniga soo ma garanaysaan ha jacaylkan idin qaba soo garanaysan ha nacaybkan Maxamed oo qaba soo garanaysan ha hadaba dhageyst nimankan Quraysheed ee aad moodaysaan inay la dagaalamayaan iyagu horta gurigoodii ma joogaan meesha lagu dagaalamayo deegaanka lagu dagaalamayo waa deegaankii caruurta iyo haweenka meeshan deganina waa haweenkiina iyo caruurtiina nimankan waa niman Quraysheed dhulkoodii iyo caruurtoodii iyo haweenkoodii meesha midna ma joogaan Maxamed way la dagaalamayaan hadii ay ka roonaadana waa la arki hadii kale ka roonaan kari waayaan de dhulkoodii iyo beledkoodii bay ku noqonayaan laakiin idinku dhulkiini iyo caruurtiini iyo haweenkiini meeshii ayaa lagu dagaalamay hadii ay iska noqdaan oo dhulkoodii ay qabtaan Maxamed yaa idinka celinay idinku soo jeesanaya
وإنكنا بالنبورنا عاد سمايسين وحده سبحان الله والله وربات شيكتي نعيمو محان سمينا وحكولي مركان نعيم دقيست وربان ده إني ما كان قبائل كان قريشيات waxaad ku tidhaahdaan annagu dagaalka idin la geli mayno ilaa aad rahaa-ina siisaan maxaabiis rag aan sii haysano oo aan markhaatiyaal noo ah inaad nala dagaalamaysaan na sii siiya 10 nin meelahaas oo rag ah aan sii haysano rahaa-inoo noqdo maxaabiis ahaan noo sii siiya markaasaan dagaalka idin la gelina kadibna wuxuu ninkii Nucaym ahaa u tagay qabaa'ilkii kale Quraysheed nimankii yahuuduna markii warka loo sheegay way qaateen waxaan wallahi war fiican badnoo tilmaantay waana noo nasteexays nimankii Quraysheed baa hadana ku noqday wuxuu yiri dhageyst aniga soo garan maysaan ha waa Nucaym baatay ha si wanaagsan anigu hadaba nimankii yahuudeed warka naga soo gaadhiya wuxuu yahay nimankii in ay qoomameeyeen ballan burintii ay la galeen Muhammad oo heshiis bay hadana dib Muhammad ula sii galeen kow wixii ay sameeyeen way ka qoomameeyeen oo markaa waxay dooneen in si ay heshiiskan cusub ay galeen ay uga run sheegaan waxay idinka doonayaan dad rahaa-in ah dad ay maxaabiis ah oo loo gudbiyo Muhammad iyo saxaabadiisii oo iyaguna inta marka la idinka dilo rag dadka rahaa-inka inta la siiyo dadka maxaabiista ah inta idinka qaataan ayay u gudbinayaan Muhammad iyo saxaabadiisii iyaguna intaasay dilayaan dabadeedna raalli bay ka noqonayaan nimanka yahuudeed markaasay yiraahdeen bal waan eegi doonaa bay nimankii Quraysheedna dhaheen dabadeedna maalintii sabtida ahayd ayaa qabaa'ilkii Quraysheed waxay u tageen nimankii yahuud oo waxay ku dhaheen la dagaalamo oo dagaalkana la bilaaba deetana waxay dhaheen nimankii yahuud annagu waan la dagaalamayna laakiin meesha lagu dagaalamayo waa dhulkayagii iyo caruurtayadii iyo beledkii iyo haweenkaygii ba degan waxaan u baahanahay dhowr nin oo aan rahaa-in u sii haysano maxaabiis u sii haysano subhanallah ninkii loo diray reer Quraysheed loo diray yahuud ayaa ku soo noqday Quraysh markaasuu warkii u sheegay markaasay dhaheen nimankii Quraysh allan ku dhaartay ninkii Nucaym loo oran jiray run buu idin sheeg ragganina rahaa-inta iyo maxaabiista ay rabaan ka dhab weey oo run buu allan ku dhaaranay noo sheegay oo rahaa-inkan iyo raggan waxay doonayeen in Muhammad u gudbiyaan markaasay diideen oo yiraahdeen ilaah baan ku dhaaranay inaan qof idin soo gacan gelinayn nimankii yahuudeedna markaasay dhaheen wallahi ninkii Nucaym ahaa run buu idin sheegay oo nimankani waxay doonayeen inay idinkaga baxaan meesha halka maxaa ku kala dhacay labadii qabaa'ilkii Quraysheed iyo qabaa'ilkii yahuudeed doonayay inay mar kaliya ay ku duulaan magaalada Madiina oo ay wada qabsadaan waxa ku dhacay jab oo labadii qabiil ayaa madaxa isla galay subhanallah saxaabigaas shaqada uu ka shaqeeyay awgeed nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo muslimiintu jawigaas sidaa u adag markii ay wajaheen waakii rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay bariyay oo habaarayay kuwana ilaha allahumma astur awratana wa amin rawatana ilaahayo astur awradayada oo waxaad argagaxayagana ilaahayo nabadgeli oo na aamin geli ayuu lahaa sidoo kale waakii habaariyay nimankana xasaabtan iyo xisbiyadan soo urursaday lahaa allahumma munzil alkitab allahumma ya munzil alkitab wa sari' alhisab uhzum alahzab allahumma ahzumhum wa zalzilhum ilaaha soo dejiya kitaabkoow ilaaha xisaabtiisu ay degdeg badan tahay oo ilaahu jabi xisbiyadan iyo dadkan soo urursaday gaaleed oo burburi oo ku gilgil dabadna Allah subhanahu wa ta'ala waa ka aqbalay nabigi ilaahi sallallahu alayhi wasallam ducaadiisi oo waxa loo soo diray ciidamo aan cidi arkaynin ciidan mid kamid ah ciidamada Allah subhanahu wa ta'ala waa dabayl ba marka la soo diray dabayshaas ayaa oo dhaxan aad u weyn wadata ayaa meesha ku dhufatay gaar ahaan meeshii ay deganaayeen 10,000 ee ciidamadii Quraysheed iyo ciidamadii reer Bani Ghatafan Carbeed dhaxantu aad bay u badnayd oo dabaysha dhacaysay darteed waxay la tagtay cariishadii ay meesha ka dhisteen saanadoodii iyo hubkoodiina way qaadatay xoolihii waxay qaadin karaysay way qaadatay dadkii nin walba beerka ayuu dhulka dhigay dhaxanta dhacaysa iyo dabaysha iyo boodhka iyo siigada dhacaysa awgeed habeenkaasi ma habeenka aadka u dhaxanta badan ayay ahayd dabadna rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu doonay nimankan
carbeed waxay go-aansadaan cid sirdoon u ah go-aankooda usoo gudbisa ayuu doonay. habeenkuna habeen aada u dhaxan badan bay ahayd. saxaabi nebigu waa ka yeedhay sala allahu alayhi wasalam oo dhawaaqaya lahaa yaa u tagaaya nimankan quraysh oo warkayga keenay. saxaabadii rasuulku dhaxantii dhacaysay darteed iyo qabowgii jiray iyo dabayshii cidba way kici kari weyd. markaasuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam mid buu taabtay, qof lugtiisa ayuu taabtay. markaasuu yihi waa kuma? markaasuu yihi waa xudayfa. markaasuu kac xudayfow. allahu akbar, waa xudayfa ibn alyamaan radia allahu canh. markaasuu xudayfa soo kacay dhaxanta dhacaysa darteed. subxaana allah, xudayfa soo kacay. markuu xudayfa ibn alyamaan radia allahu canhuma uu soo kacay ayuu rasuulku ku lahaa sala allahu alayhi wasalam u tag oo godkan ka gudub oo quraysh iyo reer bani qadafaan iyo carabtaa u tag oo soo eego sirdoon ahaan u tag meesha oo warkooda ay keen. inta aad hawshaa ku jirtidna wax aad samayn karaysaa ma jirto, yacni khalkhal ha gelinin meesha. oo hadday ku jaanaysa ad u heshid inaad cid dishid, cidna ha dilin, se leebkaaga iyo qaansadaada iska sido, waxna ha ridin, waxna ha samayn. waayahay buu yihi wuu baxay marka xudayfa ibn alyamaan godkii buu ka gudbay. wuxuu tegay dhulkii nimankii carabeed iyo qurayshtii meeshii jooga. wuxuu leeyahay xudayfa ibn alyamaan dhaxanta annaga nahaysa waaba wax yar, kuwan waxa ka dhacaya buu leeyahay. subxaana allah, dhaxan aada u daran, qabow aada u daran, dabayl diran oo subxaan cariishadoodii, hubkoodii, xoolahoodii wixiiba cidla ku tuurtay. subxaana allah. wuxuu yihi markaan meesha yimiba waxaan arkay nin dheer oo meel dab ah kulaalaya, meel intuu dab iyo xaabo laga shiday kulaalaya ayaan arkay. markaasaan arkay inuu yahay buu yihi abu sufyaan. markaasaan cabaystay buu yihi leebkayga iyo qaansadii. waa ninkani waa maxay? waa zaciimkii dhammaayay ugu sarreeyay quraysh oo dhan, wuu dili karayay. subxaana allah. waan cabaystay buu yihi. markaan cabaysteen leebkayga isyidhi ku tuur ayaa waxaan xasuustay weedhii nabiga sala allahu alayhi wasalam ee ahayd waxna ha samaynin, khalkhalna ha gelin. markaasaan iska celiyay buu yihi leebkayga. ninkii abu sufyaan baa markan dhawaaqay oo wuxuu dareemay markan ina cid sirdoon ahi laga yaabo inay soo dhex gashay meeshii, inay ku dhex jirto. markaasuu yihi nin walowba ninka kugu xiga weydii cidda uu yahay. allahu akbar. nin walba wuxuu leeyahay waa kuma isku dhe labadan isku xiga, nin walba waa la ishaybsanaya, war kumaat. markaasuu nin walba u sheegaya ciddaas iyo ciddaasana. markii heerkaa gaadha xudayfa ibn alyamaan radia allahu canhu wuxuu yidhi markii ninkii abu sufyaan uu sidaa yidhi ayaan markiiba anigu ka gaadhsiiyey intaan aniga la weydiinin bankii xagga midig iga xigay baan waxaan ku ihi war kumaat. markaasuu yihi hebel. wuu booday buu yidhi, markaas waa cabsaday. kan kale xaggan iga xigay baan ku ihi war kumaate. markaasuu yihi hebel. kana waa boodo, waa cabsaday. dabadeedna aniguna waan iska aamusay buu yihi, cidna waxba ima weydiinin. laa ilaaha ila allah. halkaasaan xudayfa ibn alyamaan uu kaga badbaaday dhagartii nimankaas. warkiibuu ogaaday nimankii markii ay dhaxantii aada u badatay oo dabaysha aada u badatay ayay waxay markiiba dhaheen aynu ka baxno meeshan, aynu iskaga noqono dhulkeennii, mar kale aynu dagaal iyo waxaan soo qaadayna aynu iska noqono. hadalkuba intaanu kasoo bixin ninkii abu sufyaan ahaa mise awrtiiba wada fuuleenoo mar kaliya yaaceenba. nimankaniba niman dagaal u jeedo meehayne cabsiibaa qalbigooda ka buuxday argagax. xudayfa waa soo noqday, godkiibuu kasoo gudbay. wuxuu yimi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam oo tukanayay. dhaxanta dhacaysay darteed wuxuu soo dhexgalay labadii lugood hoostoodii, labadii lugood ee nebiga hoostiisa buu soo dhexgalay. markaasuu nebigu go-iisii sala allahu calayhi wasalam uu saarayay dhaxantii dhacaysay darteed sala allahu calayhi wasalam. markaasuu lahay xudayfa ii waran. markaasuu rasuulka uga warramay u lahaa yaa rasuul allah, nimankii way baxeen oo wayna iska tageen, waxayna u diyaar garoobayaan inay ku noqdaan dhulkoodii. nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii weedhiisii lahaa kelmadiisii runtii dhaxalgalka ahayd ee uu ku sheegay muuminiinta ugu bushaareynaya lahaa al'aana naqzuuhum walaa yaqzuuna. iminka ay annagu unbaa ku duulayna buu leeyahay rasuulku, innaga ayaa ah kuwa duulaya, dib oo u dambaysa quraysh inaguma soo duulayso. naxnu nasiiru ilayhim, annaga ayaa xaggooda u kacayna. subxaana allah. waana dabcan markii ugu dambeysay qabaa'ilka quraysheed ay kusoo qaadaan weerar iyo duulaan nebiga sala allahu alayhi wasalam ahayd. wixii ka dambeeyey oo dhan muslimiintu ayagaa weerar ahaa. markii nimankaasi ay dib u noqdeen oo allah subxaana wa tacaala uu leeyay wakafa allahu lmuuminiina alqitaal, oo muuminiintii uu ilaahay ka kaafi yeelay inay dagaal uu dhaco iyo duulaankaasi meesha magaalada madiine la qabsado uu ilaahay ka kaafi yeelay,
ayuu rasuulku sala allah alay wasalam iyo saxaabadiisii kusoo noqdeen magaaladii madiina. rasuulku wuxuu galay gurigii xaaskiisii iyo marwadiisii ummu salama radia allahu canha. wuxuu doonay inuu qubays qaato. waxaa u yimi markii malakul jibriil calayhi salaam oo wuxuu ku yidhi ma hubkaaga dhigaysa muxamedow, oo anagu oo malaa'igta ahi hubkii maanaan dhigin, meesha ka kac oo nimankii reer bani qurayda ee ballanka buriyey ayaga oo aan meel la dhigin arrinkooda hubka ha dhigin buu lagu yidhi. sala allahu calayhi wasalam waa soo haaday marka, oo markiiba wuxuu u yimi saxaabadiisii wuxuu faray ciddii i maqlaysa ay ateecayso ha ku tukanina salaata casar reer bani qurayda mooyaane. meesha reer bani qurayda meeshay degan yihiin meelaan ahayn kuma tukanaysaan buu yihi rasuulku. marka calankiina waxaa gacanta loo geliyay caliy ibn abi aalib radia allahu canh. magaalada madiina nebigu wuxuu kaga yimi cabdillahi ibni umaya ibni maktuum oo saxaabigaas oo isaguna ku fiicnaa xagga hogaaminta. rasuulkuna waa soo baxay isagoo la socda koox saxaabadiisa ka mid a muhaajiriintii ansaartii. laakiin intii jidka lagu sii jiray ayaa salaadii casar ay soo gaadhay saxaabadiisii. markaasi saxaabada waxay isku lahaayeen annagu waxaan ku tukanaynaa reer bani qurayda oo nebigaana faro nagu yihi reer bani qurayda wayna ku tukataan salaada casar. qolyo kalena waxay dhaheen may, nebigu wuxuu sheegay inaynu degdegne may ahayn inaynu ku tukanaa, halkan aan ku tukanayna, halkan ay salaada nagu qabatay. calaa kulli xaal laba qola loo kala dhaco. qolo waxay tidhi annagu xaggaasaan ku tukanaynaa, kuwa kalena waxay dhaheen annagu halkan aan ku tukanaynaa. labadii midna lama canaanan. muslimiintii markay gaadheen nimankii yahuudda ahaa ee criminalka ahaa mujrimiin ilxarb dagaal oogayaashii ballanka ku buriyay nebiga sala allahu alayh wasalam ee muslimiinta halista geliyey, markii uu gaadhay meeshii ay deganaayeen ayaa go-doon laga qabtay. 3,000 oo saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo 30 faras watay ayaa hareeraha ka galay oo xusaar ku qabtay iyo go-doon iyo iskuweer ka qabtay nimankii yahuudii reer bani qurayda. yahuuddii reer bani qurayda markii ay arkeen in xusaar lagu hayo iyo go-doon, ayaa ninkii madaxda u ahay kacb ibnu asad la odhan jiray ayaa wuxuu ku yihi yahuuday dhegaysta, 3 mid doorta, inaad islaamtaan oo allan ku dhaartay buu leeyahay, muslimiin inaad noqotaan. waa ogteedin inuu nebigani nebi moxamed uu yahay, sifooyinkiisa kaan ka helayno kutubteena inuu yahay, shaki kama taagna inuu moxamed rasuulullahi uu yahay, aynu rumayno bay yidhaahdeen. ayuu ku yidhi kaa kowdhe, ama aynu caruurtoodii iyo ubadka iyo waxa aan dilno oo aynu ku baxno seefo ku baxno la dirirno moxamed iyo saxaabadiisii, ama aan weerar qaadno oo aynu jebinno maalinta sabtida ah. maalintani waxay maalin sabti, waana kuwii ku lahaa markii uu xuyay ibnu akhtab reer bani quraysh markay u tegaysay ku lahay kana la dagaalama, waa kii ku marmarsoonayay lahaa maanta waa maalin sabti iyo sabtiyadii hore waxay dhibaato badan intan dagaal sabtiduna mamnuuc bay ka tahay inay dagaalamaan yahuud. sabtiyo horan dagaalanay dhibta noocaasaba nala kulantay, waa kuwii lahaa ku marmarsoonayay. iminkana waxa uu ku leeyahay ninkii kacab ahaa, war maanta sabtida aynu jebinno oo aynu dagaalanno oo aynu moxamed iyo saxaabadiisaan la dagaalamno, wax iska dhicinno. dabadeedna 3 midna way dooran waayeen nimankii yahuudeed. markaasuu intuu xanaaqay kacab ibni asad oo ninkii ugu madaxsanaahay mala ugu garaadka weynaa yahuudeed ayuu ku yidhi war weligiin miyaan laydin dhalin, weligiin miyadan go-aan maalin keliya goosanin. subxaan allah, nimanka yahuuduna niman waxay iska ahaayeen maxay niman iska garaad yar oo ballan burin iyo khiyaano ku nool. 3 doorasho ee uu soo jeediyey ninkaas madaxda u ahina way diideen. dabadeedna waxay dhaheen waxaanu xukunka rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaanu ku dhacaynaa oo rasuulku wuxuu doonaha nagu xukumo. laakiin waxay dooneen inay weydiiyaan, inay ogaadaan haddii ay gacanta nebiga galaan waxa lagu samaynayo. deetana saxaabiga la dhaho abu lubaaba radia allahu canhu oo caruurtiisii iyo faamilkiisu ay deganaayeen meeshan reer bani qurayda ay degan yihiin ay deganaayeen, ayay weydiiyeen oo waxay ku dhaheen abu lubaabow haddii aanu moxamed isu dhiibno muxuu nagu samaynayn. saxaabigan subxaan allah gacantiisa ayuu saa yidhi, yani isagoo sheegaya waa laydin biraynaya waa laydin laynaya, isagoo gacantiisa saa halkaa cunaha halkaa hunguriga ayuu saa u mariyay, isagoo uga jeeday maxay in la laynayo. calaa kulli xaal way fahmeen nimankii.
subxaan allah saxaabigani sirtii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu faafiyey dembina wuu ku dhacay oo nebi maxamed sala allahu alay wasalam sirtiisi iyo muslimiinta sirtoodii ayuu mar keliya ka shifay dembigaasuu ku dhacay deetana wuxuu ogaaday inuu dembiga weyn uu galay saxaabigana waa soo ordo masaajidka ayuu yimi geed hoos gidaarka ayuu isku xidhay oo gacmahaas laga xidhay isagaa isku xidhay isagoo leh dembigaasoo laga dhaafo mooyaan halkaasaan ku xidhnaanin markii rasuulka loo sheegay sala allahu alayh wasalam waa kila hadduu aniga iman lahaa waanu dembi dhaaf warsan lahaa laakiin hadduu isagu gidaarkaa isku xidhay kama furayna buu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam ilaa uu ilaahay ka toobad aqbalayo nimankii reer bani qurayda xusaarkiiba aada loogu qabtay oo saxaabigii geesiga ahay cali bn abi aalib ayaa wuxuu lahaa radia allahu canhu allaan ku dhaartay waxaan dhadhaminayaa wixii uu xamsa dhadhamiye adeerkay ama meeshan waan furanaya xusuuntooda iyo dhufaysyada ay ku jiraan nimankan yahuudada reer bani qurayda waan furanaya ila isagaana hayay calankii iyo raayadii muslimiintana hayay calaa kulli xaal nimankii yahuudeed way hayn kari waayeen dhufayskiina ku jiraan oo dhufayska way kusii jiri kari lahaayeen sababtoo ah muslimiintu dhib badan bay xilligan ay la kulmeenoo waynagii ogeyn in dagaalkii axzaab ay kasoo noqdeen dagaalo badan oo acraabta iyo dhibaatooyin fara badan oo loo geystay ayay muslimiintu aada ugu tamar yaraadeen marka nimankan yahuuddu balo fiirso rucbiga iyo argagaxa ku jirtay iyo cabsida ku jirtay dhufayska way kusii jiri lahaayeen in badan muslimiinta in badan way kusii jiri lahayen wax way iska dhicin kari lahayen laakiin markiiba waxay ku degdegeen inay nebi maxamed sala allahu alay wasalam isu dhiibaan oo uu nebigu xukumo calaa kulli xaal nimankii raggoodii waa la xidhxidhay maxamed ibni muslim saxaabigaas u qaabilsanaa in la xidhxidho gacmaha laga xidhxidhay nimankii yahuudeed dabadeedna saxaabadii reer aws ee ansaarta ahaaba waxay dhaheen yaa rasuul allah annaga xulufadayadii reer bani qayniqaac waa digii waxa wanaagsan oo aws reer bani qayniqaacna waynagii soo marnay markii nimanka yahuudad iyaguna ay ballanta buriyeen ee gabadha muslimadda ahna dileen intay cawradeeda ka shifeen lacnaday dushaha ka fuusheen saxaabigii dilayna ay dileen ayuu nebigu sala allahu alay wasalam waakii ku xukumayay inay magaalada madiine ka baxaan calaa kulli xaal nebigu sala allahu alayh wasalam ciddii ku qasabtay in reer bani qayniqaac magaalada madiine ay ka baxaana wuxuu ahaa munaafiqii la odhan jiray cabdillahi ibni ubay ibni salool oo reer aws ahaa marka waxay leeyihiin reer aws oo saxaabadii ahaa wadigii wanaajiyay nimankii reer bani qayniqaac oo aan abaalkoodiiyo dhirbaxa kulul ku dhufanin aan wada laynin nimankan hagaaji bay ku leeyihiin dabadeedna rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam nimankana xulufo waxay leeyihiin maxay qabaa'ilkii kale ansaarida khasrajiyiinta marka wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam raalli ma ku tihidiin buu ku yihi nimankii khasrajiyiinta ah haddii nin idinka mid ahi uu xukumo oo uu ku xukumo wuxuu doono waxay dhaheen yaa rasuul allah raalli baan ku nahay subxaan allah waayo ninka xukumaya waa ninkii sacd ibnu mucaad markuu nebigu sala allahu alayh wasalam u dirayay uu ku lahaa bal soo egni nimankii ballanta buriyeen ay soo caayeen ee nebigii ilaahay ay ku dhibeen nebigi sala allah alay sacd ibnu mucaad oo laa yakhaafu lilahi lowmata laym aan ilaahay agtiisa mid wax canaantii aan ka cabsanaynin ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi kaasaa xukumaya sacd ibnu mucaad waynaan soo sheegno sacd ibnu mucaad waynagii lahayn fallaadh ayaa ku dhacday oo nabar baa soo gaadhay markii muraamaaka la sameynay yacni markii fallaadhaha iyo warmaha la tuurtuurayay godka laga soo kala tuurtuurayay saxaabada iyo nimankii gaalada carbeed isku soo tuurtuurayeen ayaa fallaadhi ku dhacday markaa dhaawac buu ahaa oo lasoo kaxeeyey oo dameer buu soo fuulay wuxuu yimi markaa nimankii reer bani qurayda meeshay joogeen reer bani qurayda oo yahuudi ahaa ayaa waxay lahaayeen na hagaaji xukunkaagaan ku dhacnay sacad ibnu mucaadowe na hagaaji markaasuu rasuulku iyo saxaabaduna waxay ku lahayn sacad laa yakhaafu lilahi lowmata laayim sacad ugama cabsanayo mid wax canaantii kama cabsanayo isagaana xukumayo markaasuu sacad u yimi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam markaasuu ku yihi yaa rasuul allah maaniga ayaa xukumayo haa buu ku yidhi dabadeedna rasuulku sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisii baa wada dhegaystay xukunka uu ku xukumaya sacad ibnu mucaad radia allahu canh sacad ibnu mucaad wuxuu yihi yaa rasuul allah waxaan ku xukumay in la dilo nimankani waa mujrimiin in la dilo raggooda
caruurtoodii haweenkoodii xoolahoodana la qabsado subxaan allah rasuulku waa kilaha sala allahu calayhi wasalam laqad xakamta fiihim xukma allahi fi sabci samaawaat waxaad ku xukuntay sacad ibnu mucaadow xukunkii uu ilaahay ku xukumay oo kasoo xukumay 7 samood korkooda laa ilaaha ila allah subxaan allah marka xukunka markii lagu xukumay nimankii yahuudeed ee mujrimiinta ahaa dambiilayaasha dagaal oogayaasha ahaa oo khiyaanada qaran ku sameeyey magaaladii Madiina heshiiska iyagoo kula jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lagu xukumay in la dilo waana la dilay nimankii yahuudeed badankoodii waa la dilay dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo xoolahoodiina waa la qaybsaday oo waxay noqdeen sabyi bay noqdeen sabyi waa la qafaash oo maxaabiis bay noqdeen subxaan allah على كل حال markii nimanka yahuudeed halkaas lagaga takhalusay oo xiqdigii iyo qadarigii iyo shirqooladii iyo khiyaanadii ay ka wadeen magaalada Madiina la soo gabagabeeyay ayaa rasuulka ayaa saxaabigii loo dhan jiray Sa'd ibn Mu'adh oo aan hore u soo sheegnay waxa kamid ah ducooyinkiisii markuu ducaysanay ilaahayow ha idilin buu lahaa ilaa inta ay ishaydu kaga indhoogsanayso waxa ku dhacay nimanka reer Bani Quraydana markii la laayay ragoodii ayuu Allah subhanahu wa ta'ala buu aqbalo wakaas ugu indhoogsiyay nimanka rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wa sallam la dagaalamay balantana buriyay in masiirkoodii uu sidaa noqday waxoogaa dhowr nin baana ka soo islaamay waqtigaas dadkooduna may badnay yahuudda u fiirsaday yahuuddu waxa weeye diinta kaliya ee dunida taala ee ugu islaamnimada yar la ilaaha illa xasdiga xaasidnimada iyo xasdiga iyo carada iyo xiqdiga ku jira ee u qabaan muslimiinta darteed kristanku malaayiin masiixiyiinaba sanad kasta soo islaam malaayiin hinduus ah ba soo islaam malaayiin buudhiis ah ba soo islaam malaayiin atiis ah oo mulxidiin ah ba soo islaam yahuudu oo ahay dadkii ugu ag dhawaa muslimiinta waxa weeye diinta kaliya ugu islaamnimada yar subhanallah waxa soo islaama qof ama laba qof la ilaaha illa allah marka yahuuda ayaa ah colka ugu weyn ee muslimiintu leeyihiin على كل حال مسلمينتي waxay mariyeen dirbaxa kulul baa lagu dhuftay wixii ay galabsadeen baana ku dhacay subhanallah tabadeedna saxaabigii Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu waxa furmay nabarkiiba furmay meeshii nabarku kaga dhacay falhadii ay ku dhacday baa furantay dhig badan baa ka yimid dabeedna uu geeriyooday waa kii rasuulkuna Allah sallallahu alayhi wasallam اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ عرشي الرحمن كأيا قلقلمي قردي سعد بن معاذ درتدى يقلقلمي markii janaasadiisa saxaabigan weyn qaaliga ah la sii wadayna munaafiqiintii waxay lahaayeen la janaasadiisani fududa oo meedkan la fududa markaas rasuulku malaa'ikta rabbi ba xambaarsan la ilaaha illa allah markaas saxaabigaasina halkaas ku shahiiday oo uu ku geeriyooday radiyallahu anhu saxaabigii kale ee Abu Lubaba radiyallahu anhu aynu soo sheegnay inuu sirtii nabiga uu ka shifay laakiin isku xiray maxay gidaarka isku soo xiray ay 6 habeen ayuu halkaas isaguna ku xidhnaa oo marka salaada la gaadho ayaa laga furayay xaaskiisuna cuntada ayay u keenaysay على كل حال ليه حبين halka markuu joogay ay toobadiisi ay soo degtay isagana xaaskiisi baa u timiyo ku tuli bushaarayso ilaahay wuxuu kugu soo dejiyay toobadaadii buu soo dejiyay oo laga toobad aqbalay markaas uu Allah ku dhaartay aniga hadaba xariga cidi kale igama furayso cidaan rasuulka ilaahay ahayn dabadna rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam salaadii subax markuu ku sii socday ka furay xariga rasuulku sallallahu alayhi wasallam markii uu soo ka faaruqday dagaalkii axzaab ee nimankii quraysheed iyo carabtii ay dib isaga noqdeen reer bani quraydana dhirbaxada kulul lagu dhuftay ay wuxuu bilaabay markan kan inuu ta'diibin ku sameeyay edbin carabtii iyo qabaa'iladii kale carabeed ee weerarka ku soo qaaday ee u soo hiiliyay carabtii kale ee quraysheed markiiba wuxuu diray sariya iyo duulaan yarbu wuxuu ku diray waxa hogaamiye u ahaa sariyadan iyo duulaankan Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu saxaabigaas sariya loo dhiibay iyo duulaan 10 habeen bay soo socdeen isaga iyo cidii la socotay waxayna tageen dhulka Najdi halkaas ay tageen oo qabaa'ilkan reer la dhaho Bakr ibn Kilab ay degan yihiin waa carabtii doonaysay nabiga inay la dagaalanto markii saxaabigaas iyo saxaabadii kale la socotay yimaadeen bayagina baxsadana yaaceen
dabadeedna saxaabigan iyo intii kale waxay kusoo noqdeen magaalada Madiina. laakiin intii waxay soo qabteen saxaabadani waxay soo qabteen ninka la dhaho Thumaama ibnu Athal al-Hanafi oo qabaylkan Carabeed ee reer Xanafiga ah kamid ah. wuxuuna ahaa sayidkii reer Bani Xaniifa sayidkoodii Thumaama ayaa gacanta lagu soo dhigay, nebiga loo keenay. dabadeedna saxaabiga markii nebiga loo keenay ayaa la xiray. deetana waa nebigu waa kii ku odhan jiray intuu yimaado, maa cindaka ya Thumaama, maxaad haysaa Thumaamow? markaasuu lahaa cindii khayr, war khayr labaan haya. in taqtul daa dam, haddaad dishid buu leeyahay. wuu hanjabayaaba iminka ninkii uu Thumaamo ahaa. haddaad dishid waxaad dilaysaa nin dhiig u saaxiiba, yacni nin qabaa'ilkiisu waa nin zaciim ah, waa nin madax ah. wuxuu leeyahay marka haddaad dishid nin aargoosanaya qabiilkiisu ay aargoosanayaan bana. wain tancam calaa shaakir buu leeyahay. haddaad iska kaysii daysidood haddaad iska kaysii daysidood aanad dilin oo aanad waxna iga qaadanin, mid mahad celinaya waanahay buu yidhi. wain kunta turiidu almaal fasal tucti maa shi'ta buu yidhi. haddaad xoolo doonaysidna i weydiiso waxaad doontid baan ku siinaya. rasuulku waa iskaga dhaafay, waa iskaga tegay. maalintii kale haddana kusoo noqday rasuulku sallallahu alayhi wasallam. markaasuu wuxuu ku leeyahay maa cindaka ya Thumaama, maantana maxaad haysa? isna intii unbuu akhrinayo. wuxuu leeyahay haddaad dishid waxaad dilaysaa nin aargoosanayo qabiilkiisu ay aargoosanayaan. haddaad isii daysidna waan mahad celinaya. haddii aad xoolo doonaysidna i weydiiyo waxaad doontid waan ku siinayaa. markii saddexaadna sidii oo kale maalintii dambe nebigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam, iska sii daaya ninkan kan, atliquu Thumaama, sii daaya buu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam. waana la sii daayay. subxaan allah, rasuulku wuxuu doonayay markaa u fiirsada xikmadda nabawiga ah ee ku jirta. Thumaama waxaa la doonayay in uu wax ku barto, tacliim iyo diraaso iyo buxuuthaat inuu sameeyo intaa uu meesha ku xiran yahay masaajidka. marka wuxuu arkayaa maxay dhaqanka muslimiinta, wuxuu arkayaa salaadooda, wuxuu arkayaa akhlaaqdooda, edebta, cilmiga meesha yaala. subxaan allah, sharafta, karaamada iyo ciziga ay leeyihiin muslimiinta. subxaan allah, markiiba Thumaama maxaa ku dhacay? qalbigiisa jacaylkii islaamnimada ku dhacday. subxaan allah, markii la yidhi waa lagu sii daayay, intuu cararay ayuu soo qubaystay, markaasuu soo noqday, markaasuu islaamay. markaasuu wuxuu ku lahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam, yaa rasuul allah, allaan ku dhaartay weji aan ka necbay wejigaaga ma jirto, iminkana wejigaaga weji aan ka jecelahay ma jirto. diintaadana waxaan ka necbaa ma jirto, iminkana diintaada waxaan ka jecelahay ma jirto. markuu islaamay ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu waxaan tagayaa buu ku yiri. nabiguna waa ogolaaday inuu cimrada tago, magaalada Makka uu tago. markuu uu tagay markaa magaaladii Makka isagoo doonay inuu cimraysto, nimankii Quraysheed ka soo horbixeen. markaasay ku dhaheen laqad asabta ya Thumaama, waa diintaadii baad badashay. asabta waa kelmad ay isticmaali jireen carabta oo jireen waad gaalowday ama diintii aabayaasha baad badashay. Thumaama markaasuu Thumaamana wuxuu lahaa maya waan islaamay. welibana meeshan deganahay tuuladii uu deganay uu madaxda ka ahaa ee loo jiray Yamaama, halkaasna xoolihii idinka iman jiray, midhihii iyo dalagii kasoo go'i jireen idinka iibin jiray, midh kama soo go'ayo buu yidhi. go-aankeeda waxaa iskale Muxammadu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam, ilaa uu isagu soo ogolaadana laydima siinayo, laydinka mana iibinayo. subxaan allah, arrintii baa ku adkaatay nimankii Quraysheed. ilaa markii dambe ay Muxamed rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam Muxamed ha ay warqad u qoreen dhaheen riximka iyo qaraabadan kugu dhaarine noo ogolow inaan halka ka baaco mushtareen. waa ninkii wuxuu noqday boqorka meesha ka ama sayidkoodii wuxuu noqday nin muslima oo Muxamedun rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam raacsiisan saxaabadii rasuulka ka mid ah. subxaan allah, intaa waxaa ku xigay dagaal la odhan jiray ghazwatu bani Lahyaan. dagaalka nebiga sallallahu alayhi wasallam baa isna hogaaminayay oo wuxuu dhacay sanadkii 6 hijriga bishii Rabiicul Awwal. rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo koox saxaabadiisa kamid ah meesha la bani Lahyaan qabaylkaas ayuu tagay. waa kuwii shirqoolka ku sameeyay 10kii saxaabi ee Rajiic lagu dilay. 10kii saxaabi ee Rajiic lagu dilay oo kamid ahaa Khubayb iyo Zayd iyo Thabit. saxaabigaas ay kamid ahaayeen saxaabadaas ay kamid ahaayeen raggii lagu dilay ee laga iibiyay magaalada Makka ee Khubayb sida xun loo dilay
subxaan allah iyo caasim ibnu thaabit saxaabadaasi sidii la dilay ee shirqoolka lagu dilay kuwii wey rasuulku muu ilaawin u fiirsada markaa ciziga iyo sharafta iyo karaamada ay diinta islaamku leedahay qofka muslimka dhiiggiisu waxa weeye dhiig si yaro fudud loo dilaya nebigu muu ilaawin maskaxdiisa iyo caqligiisa kusii jirtay markiiba nimankii ku sameeyey shirqoolka waana ka horyimi dagaalna waa ku qaaday markii ay arkeen inuu muxamedu rasuulullahi sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa ay meesha yimaadeen ay nimankii yaaceen oo buuraha ayay ku yaaceen nebiguna halkaa 2 casho ayuu joogay waxoogaa sariyaad yaryar iyo duulaano yaroo kalena waa diray calaa kulli xaal magaalada madiina ayuu kusoo noqday 14 habeen markii uu ka maqnaa haddana nebigu sala allahu alay wasalam edbintiibuu waday nimankii carabeed ee soo raacay qurayshta edbinteediibuu waday waana kii rasuulku lahaa dagaalka axzaab waxa ka dambeeya iminka inagunbaa duulana iminka waxaa bilaabmaya waa marxalo kale marxaladii hore nebiga iyo saxaabadiisa lagu soo duulay oo quraysh iyo carab wada socotaa soo duulaysay iminka weerarka waxa wada muslimiinta subxaan allah oo waxa la edbinaya carabtii doonaysay inay qabsadaan magaalada madiina calaa kulli xaal ghaswadanna waxaa la ghaswatu bani lmustaliq oo qabaa'ilkan reer bani lmustaliq ayuu nebigu sala allahu alay wasalam duulaan ku qaaday oo war baa u yimi nebiga sala allahu alay wasalam reer bani lmustaliqa ninkii madaxda u ahay la odhan jiray xaaris ibn abi daraar ayaa qoladiisii iyo reerkiisii u tegay iyo qaar kaloo carbeed oo kaashanayo isagoo doonaya in uu kusoo duulo uu dagaal la galo nebi maxamed sala allahu alay wasalam deetana rasuulku wuxuu diray saxaabiga la odhan jiray burayda ibn alxusein si uu arrinkan u xaqiijisto loo ogaado inay dhab tahay iyo in kale calaa kulli xaal burayda wuxuu la kulmay ninka la dhahdo xaaris ibn abi daraar oo qabaa'ilkan oo dhan madax u ahaa wuxuuna ogaaday in ay dhab tahay oo nimankani ay doonayaan inay dagaal ka soo qaadaan magaalada madiina dabadeedna markuu nebigu warkan hubsaday ayuu soo baxay isagiiyo saxaabadiisii iyo koox ka mid ah markan waxaa soo raacay muslimiinta qolyo munaafiqiin ah baa soo raacay muslimiinta calaa kulli xaal markii meeshii ay yimaadeen saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa dagaal baa dhacay reer bani lmustaliqi ahaa ayaa la isgalay waxaana raayadii gacantiisa ku hayay abubakar radia allahu canhu dhanka kale saxaabada ansaartina waxaa hogaaminaya sacd ibnu cibaada radia allahu canhu dabadeedna waa la isgalay markuu dagaalkii muddo uu socdaybu nebigu wuxuu faray in weerar lagu qaado weerarkiibaa lagu qaaday mushrikiinta iyo gaaladiiba la jebiyey wixii laga dilayna waa laga dilay dumarkii iyo caruurtoodii iyo wixii la qafaalan karayay laga qafaashayna waa la qabto maxaabiis bay noqdeen waxaana ka mid ahaa dadkii la qafaashay maxaabiista noqday juwayriya bintulxaarith ayaa noqotay oo waxa waayo juwayriya waxaa dhalay ninkan qabaa'ilkan reer banilmustaliq oo dhan madaxooda oo xaaris ibnu daraar ahaa ayaa gabadhii uu dhalay ee juwayriya bintu xaaris la qabsaday oo waxay gashay gacanta muslimiinta maxbuus bay noqotay dabadeedna ninkii xaaris ahaa markii waa kan inantiisi la xiday ayuu wuxuu damcay markan inuu uu soo furto oo uu xoolo soo ururiyo calaa kulli xaal xoolihii markuu ninkaasi soo ururiyo geel iyo waxoogaa soo ururiyo uu kusoo furto inantiisa ayuu wuxuu intuu jidka kusoo jiray ayuu xoolihii saa u eegay deetana wuxuu quuri waayey 2 halaad ku jirtay oo yidhi 2dan halaade waa maxay ku jirta meesha 2dan halaad buu wuxuu ku qariyay meel buur ah meel buu geliyay keligii wuuna og yahay subxaan allah nebigii ilaahay buu yimi sala allahu calayh wasalam oo ku yidhi nebigi ilaahay ayuu ku yidhi gabadhay aan dhalay juwayriya bintulxaarith ayaanu imi si aan ugu furto geela iyo xoolahan aan ku keenay mucjisadii dhacday baa waxay ahayd nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi 2dii halaad ee aad meesha ku qarinaysay aawe waxay geelan kala dhiman adii keenaysa 2dii halaadaad meesha ku qarisay aawe ninkiiba wuu yaabay subxaan allah wallahi cidaan aniga ahayn may ogeyn sidaad ku ogaatina 2 halaad aan quuri waayeen maalgeliyay subxaan allah calaa kulli xaal nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu usoo jeediyey inuu gabadhan juwayriya oo isagu u dhalay inuu guursado waana guursaday rasuulku sala allahu alayh wasalam dabadeedna saxaabadii rasuulku dhammaan waxay sii daayeen dadkii kale ee ay qabsadeen ee lasoo qafaashay oo dhan ayaa la sii daayey oo maxaabiistii laga sii daayey ayagoo ku ixtiraamaya maxay
sihriga iyo xididka rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu la sameeyay Harith ibn Dirar oo guursaday marwadii ama hooyadii muuminiinta Juwayri radiyallahu anha. dagaalkaasi markii uu dhamaaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku degay meesha la yiraahdo Mursiya, halkaas isagoo la taagan markan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayaa ceel ka dhawaa ayaa waxa soo dul istaagay laba saxaabi oo midna uu yahay muhaajir ka kalena uu yahay ansari oo Jahjah al-Ghafari loo oran jiray, mid ka kalena Sanaan ibn Wabar al-Juhani loo oran jiray. waxa isku qabsadeen marka labadii saxaabi midna ansariga midna muhaajirka ah waxa isku qabsadeen biyihii, dadana way isku yara booqeen. ala kulli xaal way dagaalameen. dabadeedna mid baa qayliyay saxaabigii Juhani oo ahaa ansaraha ayaa qayliyo wuxuu yiri yaa macshar al-ansar, reer ansaareedow. saxaabigii kale Jahjah al-Ghafari baa isna wuxuu yiri reer yaa macshar al-muhaajiriin, ma intii muhaajiriinta ahayday. ala kulli xaal labadii saxaabiba mid walba uu habar wacday. arrintaasina qabyaalad bay noqotay. subhanallah, rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo jooga ay kelmadaasi weedhahaasi soo baxeen. markaasuu rasuulku lahaa abid'u wal jahiliyya, ma yeedhmadii jaahilinimada ayaad isugu yeedhaysaan, waana bayna adhurikum anoo idin dhex jooga ayaad waxa isugu yeedhaysaan. dacuuha fa innaha muntina, ka taga buu yidhi qabyaaladan, iyadu way uraysaa iyo ka taga buu lahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam. markuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu arrintaas soo gabagabeeyay labadii saxaabi qabyaaladiyo wixii caatifada keenayay uu hoos u dhigay ayaa warkii wuxuu gaadhay ra'sul kufri wal nifaaq, waayo madaxii nifaaqa iyo munaafiqnimada Cabdillaahi ibn Ubay ibn Salul. ninka markuu gaadhay ayuu yiri ma sidaas u sameeyay Maxamed, allan ku dhaartay waxaan nagu dabaqmayu ku leeyahay mahmaahdii oranaysay aygaaga rabbe ama aygaaga waxsi ha ku cuna adiga, isagoo uga jeeda maxay saxaabadii rasuulka iyo muhaajiriinta oo uu leeyahay magaalada Madiina muhaajiriinta tan degan annagiiba na cuneen oo xoolahayagiiba qaateen waana naga tira bateen, waxaana ku dabaqmaysa mahmaahda odhanaysa aygaaga rabbe ha ku cuna adiga. sidoo kale wuxuu yiri allan ku dhaartay marka aan ku noqdo magaalada Madiina ka sharafta lahi wuxuu ka saaraya magaalada Madiina ka dulaysan, isagoo ka dulaysan uga jeeday nabiga ilaahay, ka sharafta lana uga jeeday isaga jeeday. حاشا لله النبي قيل إسجا أي أهك الدليسن الصغير كأهجالك لكن أرين كامرك وراها يديني كان نفاق يوم منافق نمدو أكبر وحدي وحا وأخري أي صحابي زيد بن الأرقم ويلير أها أي مقلي مركب وصو أرضو أديركي بوشاق أديركين الرسول كله بوشاق إن عبد الله بن أمية وحاسع كسيران. على كل حال مركي وركي وقال رسول كله صلى الله عليه وسلم أيو عمر بن الخطاب أكتسي شوقي وحور يا رسول الله واحد فرتا صحابي عباد بن بشر أو اسكو قلاها ين اسكو جربها هاي صحابي فر واحد فرتا هدلو نين كان لراد عبد الله بن أبي رسولك صلى الله عليه وسلم وحكول عمرو دقيسو بل كور انتدكو هدي كل شاكستان محمد وحد لا صحابة ديسي لأن كان مسلم يهاب الشيكاني وانا نفاقي منافقني من هوركي وجرت إن كان مسلم يهو الشيكاني بل كور عمرو انتدكو هدي كل شاكستان محمد وحد لا صحابة ديسي لا إله إلا الله. على كل حال رسولك صلى الله عليه وسلم وحو فري صحابتي إن أي بحان وأي ديار جروبان إن بحان حلي رسولك الله جبران إنه بحو أيو بحي لتنا صحابي أسيد ابن حصير يا يمي أسيد بأيمي مركا رسولك الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حلي أنا لا يجبرين إن بحديد عيد مدى أتك حيسيد بد بحيسا مركا رسولك وجو الرمى يوركي عبد الله بن أبي بن سلول كسوق عليه تنا رسولك وكي عبد الله بن أبي المنافق بأوي من رسولك سكر دارنا يقول يا رسول الله وحب ما سمينين يا رسول الله ويل كنير ورك كاني وحب موك له بسنين وحب خلطمي. على كل حال رسولك والرميست زيد بن الأرقم ويل كيرا ورك كاني أديرك يوسي شيء أديركين والنبي جوصو شيء أيه وحب كل يعني مركي النبي والرميست وح قلبي جيك كسر تعي همي بدن أيه أصيب بالله سبحان الله. لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى قرآن لا أخري إلى قيام الساعة كسر وحي نمان كاس آخرين وحسدت سورة المنافقون وكشفت النفاق دي يوحو نكاس وآخرين يوردن وحي يجيب بسودقه وويلكي زيد بن الأرقم وحو الشيقي يوردن الشاقبة
والله كنت المام إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. markay ku yimaadaan munaafiqiintu waxay ku dhahayaan nebi maxamedow adigu waxaad tahay rasuulka ilaahay, ilaahayna wuu og yahay inaad rasuulkoodii aad tahay, ilaahayna wuxuu og yahay oo markhaatiya marag ka yahay inay munaafiqiintu beenaalayaal yihiin oo aanay been ay ka tahay waxay sheegayaan afka un aanay ay ka tahay yani qalbiga ka ahayn inaad rasuulka ilaahay aad tahay. subxaan allah. markii aayaadkaasi waxyigaasi uu soo degay ee ay kashifmeen nimankii munaafiqiinta ahaa ayaa wiil uu dhalay cabdillaahi ibnu ubaya munaafiqan ra'su nifaaq wiil uu dhalay oo ahaa isagu saxaabi wanaagsan, nin aad u wanaagsan oo saxaabadii wanaagsanaa ka mid ahaa isna la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubaya ibnu salool la odhan jiray ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi sala alla alay slam yaa rasuul allah aniga ii ogolow anaa aabahayba dilaye, waxaan ka cabsanayaa inaan arko qaatilu abika haddaad cid u diraysid ood ka laba cid u diraysid inaad dishid waxaan ka cabsanayaa ciddii dishay aabbahay inay meelaha i hormarmartay intaasan ka yar warwaraya, haddaad cid u diraysid aniga ii dir anaa dilaaye. rasuulku ma odhanin cidna dil. subxaan allah. waayo ninkani saxaabadii muslimiinta saxaabadii rasuulka ayuu iska dhigayayo waa dee nin munaafiq ah. waxaanu rasuulku diidayaa sumcad xumada kasoo baxaysa haddii uu rasuulku uu dilo nin ka mida saxaabadiisii. subxaan allah. calaa kulli xaal markii magaaladii madiine la gaadhay oo safarkii iyo magaaladii madiine ay tageen ayuu wiilkii uu dhalay cabdillaahi ibnu ubaya ee saxaabigii saalixa ahaa ee wanaagsanaa ayaa seef ku hor istaagay magaalada madiine oo ku yidhi ka sharafta leh ayaa kuu ogolaanaya inaad soo geshid, soo geli maysid, adiga ayaa ah ka dulaysan. ila isagaa marka hore yidhi ka dulaysani ka sharafta leh wuxuu ka saarayaa magaalada madiine ka dulaysan isagoo uga jeeda ka sharafta leh naftiisa ka dulaysanna saxaabadii nebiga uga jeeday. markaasuu wiilkii yaraa wiilkii uu dhalay uu ku yidhi adiga ayaa ah ka dulaysan ee laga saaraya magaalada madiine lagumana ogolaanay. calaa kulli xaal nebigu markuu yimi buu nebigu ku yidhi ha iska sii daa, waana loo ogolaaday inuu soo gala magaalada madiine. laakiin intii safarkaa lagu jiray waxaa dhacday xaadithadii iyo dhacdadii been abuuradka ahayd ee lagu been abuurtay hooyadii muuminiinta ee caaisha radiallahu canha lagu been abuurtay xaadithatul ifki ayaa dhacday. xaadiثadan iyo waqacadanina waxay ku dhacday caaisha waxay la socotay waxay soo raacday rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo ghaswadan iyo duulaankan ayay la socotay. calaa kulli xaal markii dad saxaabadii rasuulku iyo nebigu ay noqdeen ayaa caaisha waxay doontay in ay xaaji u doonatay. deetana intii ay ku maqnayd xaajadii ayaa waxa ka dhacay silsilad ay kasoo daynsatay walaasheed ayaa ka dhacday. deetana way raadisay, waktiguna waxay ahayd wakti mugdigu markaa salaadii maqrib ay taagantaho oo ay mugdi ay soo noqonaysay. sida u raadinaysay ayaa dadkii saxaabadii oo dhan ay mar keliya kaceen. hawdajkii markaa ay hawdajku waa maxay? waxay ahayd carabtu dhaqan ay lahayd dumarka waxa la gelin jiray ama ay saarnaan jireen oo qol yar oo hawdaj ah ayaa looga samayn jiray awrka dushiisa. deetana halkaasi ruuxa dumarka ahi ay fadhiisan jirtay oo halkaasa awrka lagu hogaamin jiro saasoo kale hawdajkaasi ku jiri jireen. marka hawdajkii maadaama ay ahayd caaisha radiallahu canha gabadh aada u yar oo caata ah lama dareemin culayskeedana lama dareemin ee waa la kaxeeyey awrtii iyo safarkiiba way dhaqaaqeen ayadoo aan la tabin. iyaduna sidii ay silsiladii u raadinaysay ayay meeshii madoobaatay. deetana waxay timi meeshii mise waxaaba safarkiiba waa baxay. waxay fadhiisatay gurigii ama meeshii ay saxaabadii rasuulku ay kaga tageen iyadoo rumaysan kolleyba marka ay jidka kusii jiraan markay arkaan inay maqantahay inay tabi doonaan oo ay kusoo noqon doonaan. halkii sidee u joogtay ayaa subxaan allah way lulootay. deetana way seexatay. waxay ku toostay saxaabigan safwaan ibnu lmucadal oo ahaa saxaabadii ma garanaysaa safar kasta rasuulku sala allah alay slam markuu bixi jiray waxaa jiri jiray nin ka dambeeya oo marka safarka waxyaalaha markuu meel uu fadhiisto waxyaalaha ay ka tagaan ay ilaawaan soo qaadi jiray. ninkaas oo ahaa saxaabadii ka dambeeyay markaa safarka ayaa arkay marwadii nebiga sala allahu alayhi wasalam. markaasuu yihi inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun zawju rasuulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. markii uu yidhi safwaan ayay
soo toostay oo ay baraarugtay xaaskii nebiga Caaisha radiyallahu anha. waxay leedahay Caaisha oo ka sheekeynaysa Safwaan kelmad kale iyo weedh kale imu odhanin wuxuu yidhi awrkii ayuu fadhiisiyey dabeetana awrkii bay fuushay Caaisha wuuna soo hogaamiyey magaaladii Madiina ayuu keenay kelmad kaliya imu odhanin bay leedahay Caaisha radiyallahu anha. markii uu magaalada Madiina sidaa u soo gelinayay ayaa munaafiqi ra'su nifaaq Abdullah ibn Ubay ayaa wuxuu arkay mowqifka noocaas ah Safwaan oo hogaaminaya awrkii iyo Caaisha oo saaran awrkii. markaas wuxuu yiri isagu markiiba kuma tuhmin zina iyo xumaan kuma tuhmin wuxuu yiri kelmad laga dheehan karaayo maxay zinada iyo qurunka uu akhrinayo iyo tuhmada iyo been abuuradka iyo buhtaanka weyn wallahi ku tilmaamay wuxuu yiri ma salima minhu yani isagu kamu nabadgelinin ayaduna isaga kama nabadgelin isagoo uga jeeda maxay inuu qad fil muhsanaat uu ku tuurayo gabadhaas uu ku tuurayo mu'minada ah xumaanta. على كل حال arrintii markuu saa u yiri ay dadkii kala markay gaadhay ba dadkii ku sheekaysteen magaalada Madiina joogoo dhan saxaabadii mu'miniinta ahayd qaar kamid ah oo fara badan baa rumaystay arrinkii waa la bunbuniye oo bal ka waran adigu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam colka iyo colnimada iyo cadaawada ay u qabeen ayagoo doonayna ku xumeeyaan oo ay doonayna ku dhibaan nabiga ilaahay sallallahu alayhi wasallam way bunbuniyeen arrintii oo waxay gaadhay magaalada Madiina oo dhan iyo carabtii magaalada Madiina joogto oo dhan oo lagu sheekaysto leeyahay zawjkii iyo xaaskii uu nabi maxamed uu qabay waxaas iyo waxaas ay samaysay subhanallah. nabiguna dhib badan ayuu dareemay waxyigiina muu soo degin bil iska dhan ayaan waxyigiiba soo degin nabiguna sallallahu alayhi wasallam aad ugu dhibaatooday waxaas nimankaasi akhrinayaan munaafiqiinta dad kamida muslimiintii mu'miniinta ahaa ee saalixiinta ahaa qaar kamida baa rumaystay oo warkii ku hadlay oo ku dhawaaqay oo faafiyayba la ilaaha illa allah. markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu arkay Caaishana markay gurigii tagtay way xanuunsatay iyadu markay xanuunsatay ay gurigeeda joogtay warkam magaalada lala dhexmarayay wax ay ka ogtahay male ma garanayso waxa ka socda magaalada maanaysan maqal la markii way xanuunsatay wuxuu bay leedahay iyadoo Caaisha markii dambe waxay tiri waxaan arki waayay lutfigii iyo wanaagii nabigu sallallahu alayhi wasallam marka aan caawdo uu ii sameyn jiro ka ayaan ka dareemi waayay bay tiri laakiin wax kale isbedela man arkin waan xanuustay bay tiri على كل حال lutfigii iyo wanaagii nabigu ii gali jirina waan ka dareemi waay. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyay dadkii ka agdhowaa Caaisha oo ay kamid ahayd Bariira oo gabadhii joogtay guriga nabiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan gurigii Caaisha uu ku weydiiyay ka warrama Caaisha ay lahayd ya rasuulallah allan ku dhaartay suurtagalka ma aha Caaisha waxa nimankaas ay sheegayaan kaliya waxaan ku arkay bay leedahay Bariira qaladki kaliyan ku arkay waxay tiri maadaama ay Caaisha ay tahay gabadh aad u yar sida ay u joogto ay cajiinka u garaacayso ay lulootada tan riyaha iyo mayeeranka ay guriga soo galo cajiinka cuna inta qalad ah mooyaane meel kale oo khalad ay ku leedahay ma jirto subhanallah. sidoo kale wuxuu weydiiyay rasuulku Usaama ibn Zayd oo weydiiyay ku bal ka warrama arrinkan Usaama ku lahaa ya rasuulallah Caaisha kama suurtooda waxa kan nimankaasi waxa akhrinayna waa munaafiqiin waa beenaalayaal ee rumaysan. sidoo kale wuxuu weydiiyay rasuulku Ali ibn Abi Talib dadkani waa maxay wadadkii ka agdhowaa gurigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku lahaa bal ka warram waxa ku tusinaysa su'aalaha faraha badan ee nabigu weydiinay sidii ay dhibtaasi u badneeday sida u faafiyeen loo buunbuuniyay been aan jirin ee buhtaanka ah ee laga been abuurtay rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam. على كل حال Ali ibn Abi Talib ayaa wuxuu yiri ya rasuulallah dumarku way badan yihiin isagoo uga jeeda maxay hadii ay sida tahay ama shakiba ay soo gashay iska fur oo gabadh kale guurso. على كل حال saas yiri Ali ibn Abi Talib dumarku maxay way badan yihiin buu ra'yigaas oo keenay radiyallahu anhu. Caaisha may tabin waxba may arkin lutfigii iyo wanaagii uu nabigu u gali jiray maysan arkin. maalintii dambe ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu masaajidka ayuu tagay minbarka ayuu istaagay wuxuu yiri marka ya saxaabadii rasuulka ayuu la hadlay oo wuxuu yiri ninkan yaa iga qabanay waa la garanaya ninkan waxa keenay oo dhan waa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ninkan yaa iga qabanay buu rasuulku lahaa wuxuu igu dhibay buu yiri reerkaygii iyo xaaskaygii buu igu dhibay. صحابي aanan xumaan ku tabin oo Safwan ibn al-Mu'attal laha صحابي aanan xumaan anigu aanan ka filanayninna wuxuu ku tilmaamay waxa xun ee uu sheegayso oo aan kaba suurtoobaynin subhanallah.
deetana saxaabigii Sacd ibnu Cibaada oo qabaa'ilkii reer Aws qabaa'ilkii reer Khasraj madax u ahaa ayaa wuxuu yaa rasuul Allah haddii aad doontid nafar waan dilaynaa deetana saxaabigii kale Sacd ibnu Cibaada adugu waxa laba saxaabigii kale Sacd ibnu Cibaada Sacd ibnu Cibaada radiyallahu anhu ayaa yidhi ma dilaysaan buuri adu laba muran baa dhex galay labadii qabaa'il ee Aws iyo Khasraj dabeetana way isku qabsadeen waxa la yidhi hala dilo iyo yaan la dilin oo qabyaaladiiba markiiba dhex bilaabantay oo fiirsada qabyaaladu iyo xamiyada iyo caadifadu meel walba ay soo geli kartaa markaasuu rasuulku uu kala qabtay labadii qole ee muslimiinta ahaa oo saxaabigan kale wuxuu yiri hadduu adiga qoladaada ahaan lahaa kelmad iyo weedha saas oo kale aad tiri maad odhan lahayn waxaad ogtahay ninku inuu annagana yahay subxaanallah deetana wuxuu yiri kana yaa rasuulallah wuu gaaloobay wuu munaafiqoobay buu yiri isaga laftigiisu deetana labadii saxaabiba madaxa isla geli gaadheen oo deetana rasuulku waa kii kala qabtay iska aamusay ala kulli xaal Aisha radiyallahu anha waxay tiri habeenkii dambe ayaan baxay oo waxaan raacay Musattax Mustah ayaan raacay tiri oo waxay doonayeen markay musqushiga dhulka ay qabtaan dumarku subxaanallah imika professor guri kastaaba musqul iyo suuli buu leeyahay waaga ma jirin musqushin iyo suuligan haweenku waxay bixi jireen xilliga habeenkii ayay bixi jireen subxaanallah deetana waxay tiri anagoo jidka ku sii socona ayaa waxa kuftay bay tiri Musattax deetana waxay tiri taaciba Musattax hoog ha u sugnaaday ninka Musattax markaasi Aisha tiri subxaanallah ma nin kamid ah saxaabadii rasuulka ayad leedahay hoog ha u sugnaado markaasay tiri Aisha miyaad war u haynin ninkan Musattaxa ah oo saxaabadii rasuulka kamid ahaa wuxuu akhrinayo way Musattax wuxuu kamid ah saxaabadii wanaagsaneed ee saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam laakiin dhacdadani maadaama ay ahayd dhacdo ku wada faaftay munaafiqiintaasi ay faafiyeen dad kamid ah saxaabadii rasuulka ee wanaagsanaa ayaa qaar kamid ah xitaa ay rumaysteen marka wuxuu yiri saxaabigani wuxuu kugu leeyahay miyaanad maqal kaasay tiri may warkiiba waa u sheegtay Musattax baa warkii oo dhan u sheegtay way barooratay marka Aisha laba habeen baanay seexanin iyo maalin dhan ay ooyinaysay oo beerkii wadnaha uu afka yimi sida uu barooranaysay subxaanallah deetana waxa uu yimi nabiga Ilaahay sallallahu alayhi wasallam ya Abu Bakr oo abaheedaha iyo hooyadeed isagoo ay la joogtay ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u yimi oo ku lahaya Aisha dhageyso haddii aad dambi gashay haddii aad dambi gashay ilaahay u toobadkeen oo istighfaar weydiiso haddii kale oo aanad bari ka tahay waxaan lagu sheegayna ilaahay uu ku bari yeelay waxay Aisha leedahay kelmadda markaan maqlay maadaama anigu bari ahayn is ogahay markaan maqlay kelmadda ilaahay uu ku bari yeelaya oo haddaad bari tahay ayaan idhi haddaan ayay marka Aisha tiri haddaan anigu idhaahdo waxba maan samaynin ima rumaysanaysaan kulliba laakiin waxaan oranayaa bay tiri sidii nabi Yusuf aabihi uu yiri fa sabrun jamiil wallahu almusta'an samir wanaagsan ayaan ku samrayaa bay tiri ala kulli hal laakiin kelmadii nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam haddii aad bari tahay ilaahay uu ku bari yeelay ayaa ka qaboojisay nabarkii iyo oohintii iyo baroortii faraha badneed isla markii meesha ay joogeen halka uu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu fadhiyo aayaadka quraanka ay soo degeen ee bari yeelaya Aisha iyo saxaabiga Safwan innal ladina jaa'u bil ifki usbatun minkum Allah innal ladina jaa'u bil ifki kuwa la yimi been abuuradka ugu weyn subhanallah wa kooxidinkeedii kamid ah ayuu Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala aayaadkaasi suuratu nuur oo aayado badan kamid ah markay soo degeen ay waxa leedahay Aisha anigu naftayda waxaan ka xaqirayay in aayad quraan ah igu soo degto waa waxaan ogaayeen kullaba bari ah laakiin waxyiga nabigu laga yaabo inuu ugu yimaado maxay ama riyo ugu yimaado ama si kale malagu ugu yimaado uu sheego ama si kale in lagu sheego ayaan filayay laakiin ismaan lahayn bilada Aisha aayad quraan ah oo ila qiyaam saaca la akhrinayo ayay kugu soo degayay subhanallah marka suuradan ayaa soo degtay suuratu nuur oo ka waramaysa maxay been abuuradka munaafiqa weyni uu ku dhex faafiyay mujtamaca muslimiinta aayadkaasi markay soo degeen ayay gabagabowday been abuuradkaas iyo waxa ay akhrinayaan halkaasay ku soo gabagabowday saxaabadii kale iyagu been ku hadlay arrinkii oo kamid ahaa Musattax
وكمل ها صحابي حسان بن ثابت iyo gabadh ay walaal ahaayeen Zaynab bint Jahsh xaaskii nabigu uu qabay Zaynab bint Jahsh oo loo oran jiray Hamna bint Jahsh saddexdaas saxaabi oo ku hadlay hadalkan faahfaahiyay iyagana maadaama ay tahay qadf al-muhsanaat gabadh mu'minada inaad wax ka sheegtid adigoon hubinan markhaati ka ahayn inaad wax iskaga hadhadashid qadf al-muhsanaat waxa lagu qaaday maxay waxa lagu qaaday xadki oo xadka qadfigu waa maxay waa 80 jeedal qof walba 80 jeedal baa laga jaray marka musaddax waa laga jaray mastax waa laga jaray Hasan ibn Thabit radiyallahu anhu waa laga jaray Hamna bint Jahsh 80 baa laga jaray laakiin ninkii Abdullah ibn Ubay isagu saxaabi ma isagu waa munaafiq isagu waa gaal ilaahay iyo rasuulkiisa baka gaalobay waana kii ka dambeeyay waxaan oo dhan isaga mid 80 laga ma jirin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u ballan qaaday inuu cadaab gali doono maalinta qiyaamada walladii tawalla kibarahu lahu cadaabun alim kasii jeestay kibirka isla kibirka weynaana kaasi cadaab weyn baa u sugnaanaysa maalinta qiyaame arrintaas markuu aayaadkaasi iyo quraankaasi soo degay waxay soo gabagabaysay maxay been abuuradkii laga sameeyay umuna Aisha radiyallahu anha wa ardaaha intaasina insha Allah ta'ala aan ku soo gabagabayn doonaa والله أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.